ciid mubaarak dhammaan asxaabta meel kastood joogtaan ku soo dhawaada kanaalka Mallo Official waxaana sii wadi doonaa taxanaheeni taariikhiga waa qaybtii labaad ee roomaankii hore dadkii hore Roomaan waxa loo yaqaanay amba la oran jiray Laatiin ciise ka hor 500 oo sano dadkii Roomaan waxay aasaaseen jamhuuriyadda amba Roman Republic hogaamiyahooda jamhuuriyadda waxay u yaqaaneen consuls oo Soomaali ahaan noqonaysa consul waxayna ku heli jireen boosaskooda madaxtinimo dadka Roomaanka waxa loo kala qaybin jiray 3 nooc oo qaybood qaybta koobaad Patricians qaybta labaad Quaestis qaybta saddexaad Plebeians haddaba qaybta koobaad aan soo marnay waxa weeyaan Patricians waxa weeyaan dadka taajiriinta isla markaana caanka ah magaalada qaybta labaad ee Quaestis iyagu waxa weeyaan dadkii ilaalin jiray boqorada dalkaasi joogay amba dadkii taajiriinta ka ahaa xilliga qaybta saddexaad Plebeians iyaguna waxa weeyaan dadka shaqaalaha isla markaana haysta shaqooyinka yaryar sida beeraleyda bagaashlayaasha iyo wixii la mid ah intaas waxay istaabistaan empire ugu fideen dalka Italy 270 ciise ka hor ugu dambeyntiina waxay maamuleen Italy waxayna noqdeen military ugu balaarnaa caalamka barigii hore amba sanadadii la soo dhaafay Julius Caesar wuxuu noqday hogaamiye militariyeedkii ugu caansanaa isla waqtigaas Roomaanka ku dhawaad 27aadkii before Ciise amba Ciise ka hor Roomaanku waxay u bedeleen boqortooyo Augustus Caesar wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horeeyay boqortooyadii Roomaanka inta kadib Roomaanku waxay ilbaxnimadii ugu deeqeen galbeedka Yurub iyo Latin America isla markaana Roomaanku waxay la qabsadeen sharci cusub kamida waxyaabaha caanka ku hayaan amba lagu xasuusto dadkii Roomaanka hore dhismaha iyo nashqadeynta guryaha dhisidda wadooyinka xarfaha Laatiinka iyo luqadda Laatiinka la soco qaybaha dambe ee barnaamijkeena si ay ku soo gaaraan qaybaha dambe taaba subscribe isla markaana riix calaamadda gambarka